horta dhowr su'aalood baa aniga maxaa ahayd halkaa aan ka qabaa number 1 ku waxa weeyaan already anu maalintii aan baabuurka aan la soo degay mid baa la igu xiray of course maxaa ahayd cashuurtii iyo wixiisii buu ku jiray oo maxaa ahayd waan ku iibsanay anigoo already mid haysta ina maanta la igu khasbo mid kale oo waliba maxaa ahayd markii horena 200,000 uun ahaa maantana 600,000 laygu leeyahay ku samayso waa $60 doorta xaq layguma laha xabadaas sababtoo waxa weyn aanu baabuurkaygu leeyahay sharci ahaan baanan ugu dhajistay intaasoo sanadood buu igu yaalay haddii dawladdu doonaysay inay iga bedesho inay iyadu iga bedesho weeyaan laakiin aniga lacag iga qaato aan ka bedelo horta xaqiguma laha number 1 number 2 na waxa weeyaan maxay ahayd marka loo eego plate number kan waxay doonayaan inay ku qoraan gobolkii marka maxay ahayd laga qaatay anigu waxaan isleeyahay ka laftarkiisu wuxuu keeni karayaa aamin maxay ahayd amniga wadanka buu horta taas u xuntahay sababta oo waynu ognahay waxa weeyaan maanta hadduu fal uu gobol ka dhaco maxay ahayd reerkiisii ama naadeerkii ba aan ahaan loo doontaa oo waynu ognahay bataa bal ka waran markaa imaka ka soo qaad maxay ahayd burco oo kale maxay ahayd qof lagu dilo oo la yiraahaa qof awdal ka yimi ba maxay ahayd dilay soo qof baabuur kasta oo awdal ka yimaada maxay ahayd markaa la dili maayo hadday sida kale tahay oo maxay ahayd burco uu qof ka yimaado qof hargeysa ku dilo oo dabeetana la yiraahaa reer burca dilay soo reer hargeysa maxay ahayd looma qabanayo maxay ahayd baabuur kasta oo ay burca ku qoran maadaama baabuurtii la og yahay mid walba gobolku ka yimi marka ina gobolada lagu qoro anigu horta number 1 amni ahaan anigu waxaan lahaa waa khalad weeyaan maxay ahayd dadka waxa loogu tala galay ina amnigooda la ilaaliyo muxuu ahaa laakiin inaynu niraahno maxay ahayd sidii yuhuudda berigii hore lagu shaabadeynayay inay yuhuud yihiin inay imakana laynagu shaabadeeyo maxay ahayd gobolkaas uu baabuurkaas ka yimi inan yaroo tukhaan maxay ahayd hooyadii u iibisay oo islahayd tahriibka kaga joojisa hadda maxay ahayd loo burburiyo aana maxay ahayd qof gobolkiisii ka yimi waa mushakil weeyaan marka runtii anu waxaan lahaa xabada horta aad iyo aad bay u xuntay dub ha looga fiirsado talabaadna waxa weeyaan inaan ogaano lacagta inta laga faraqa inta la eg from 200,000 to 600,000 waa 400,000 waxa meesha ka soo baxaya lacagtan horta xagee bay ku shubmaysaa $60 every single plate kii hore ee joogay maxay ahayd ka cusubna 100,000 ha laga dhigo waxaynu ka hadlaynaa billions and billions and billions of dollars ka dawladdu ma waxay leedahay intaasoo iskuul baan idinku dhisaynaa ma waxay leedahay intaasoo cusbitaal baan idinku dhisaynaa ma waxay leedahay burcaan oo airport u samaynaynaa awdal baan airport u samaynaynaa sanaag iyo ceerigaa baanu maxaa ahayd airport u samaynaynaa sool iyo sanaag baanu airport u samaynaynaa maxay ku samaynayaan lacagta billions of dollars kaas mise waxa weeyaan mashruuc lagu naasnuujiyey qof su'aalaha la isweydiinaya waxa weeyaan waa taa talabaadna waxa weeyaan marka laga hadlayo la leeyahay $60 ba qofkiiba maxaa ahayd taagadii uu awal u haystay lagaga bedelaya miyaanay wanaagsaneyn horta marka ugu horeysa baabuurkan wadadii uu mari lahaaba in loo hagaajiyo ilaa maxaa ahayd wada la'aan ba maanta maxaa ahayd nahaysa lacag cashuur baa la naga qaadaa 6 biloodba oo la yiraahdo waa wada maris anu wada la marayaba ma arkanay god maris baa maxaa ahayd la naga qaadaa bal godadkan goorma la naga sameynaya taageer baa la sameynaya cashuur baa laga qaadaya baabuurkiiba 3 bilood ba aad geerishka geynaysayo aad biraha ka bedelayso shakaladii ay maxay sii deynayaano naftiyareed baa naga baxdayba baabuurkiiba imika waxaanu taaganahay ma iska bandhigtaanba baansiintiiba cirka la geeyay wada alla wada uu baabuurkaas marayana ma jirto gabadhii uurka lahayd way ku dhicinaysaa wadooyinka qaarkood marka runtii dawladdu marka ay mashruucyada caynkan soo saarayso waxa fiican inay eegto maxay ma mushakil bay dadweynaha ku keenaysaa inanka yar xageebuu ka keenaya inanka yar ee maanta tukhaanka yar haysta maxay dirqi marka horeba maxay ahayd biilka reerkiisii uu uga soo saarayo $60 ka xageebuu ka keenaya marka ugu horeysa marka maxaad baaqad u diraysaa dawladdu waxa leeyahay dawladdu waxa weyn inay dalkeeda iyo dadkeeda u naxariisato
madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne marka aad baaqyada caynkan soo saaraysaan horta marka ugu horeysa bal dadkaaga aad xukumaysid madaxweyne u tahay bal xaaladda ay ku nool yihiin horta dib u eeg maanta waxa weeyaan xaalad xun baynu ku jirnaa sixir barar baahsan baynu ku jirnaa maciishadii cirka tagtay baynu ku jirnaa dadkii iyo ka beerka dhulka ku haya dad baana dheri dabkaana saarin laba dabaq oo aana isa soo gaadhayn ba Soomaaliland maanta ka samaysmay dabaq sare oo la gaadhin iyo dabaq hoose oo dambaska noqday maxaa hayd aynu horta ka fikirno war dadkeenu maanta ma qaadi karayaan waxaan aynu soo saarayna mise ma qaadi karayaan mar kasta oo maxaa hayd mashruuc cusub la keenayo horta wayna loo eego oo la eego bal dadku ma qaadi karaan ma qaadi karaan naxariista dadweynaha aad mas'uulka ka tahay markaad eegtid buu ilaahayna naxariista uu maxaa hayd naxariistiisii uu ku tusaya marka anigu waxaan ugu baaqi lahaa bal maxaa hayd dib uga fiirsada mashruucan sida kale uu mashruuc wanaagsan buu noqon karayaa laakiin waxa weeyaan in horta fine prints-ka la eego waa in si wanaagsan looga baaraadego sidee baynu samayn karaynaa sidee baa ugu haboon sidee baynu dadka maxaa haydin aynu mushaakil kale aanaynu dhakada ka saarin iyo ko sidooda kaleba maanta uu qof waliba uu ka fikirayo maxaan maanta cunaa